السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waxa la yiraahdaa Cabdi Yuusuf Ibrahim. Soomaali baan ahay. Waxaan deganahay magaalada Ottawa ee dalka Canada. Halkaas oo aan deganaa 25 sano. Wadankayga waxaan ka soo maqnaa muddo gaaraysa 35 sano. Intaasna qurbo ayaan wareegay. waxaan qurbaha u wareegayo sida ummadda Soomaaliyeed inteeda badan oo dhan ay qurbaha u wareegayso. Way doonaysaa inay shaqaystaan ay wax soo saaraan. iyagoo dhibaato badan qurbaha kala kulma. waxaa wadankeena jira dad oo dhagar qabayaal ah oo doonaya inay ummadda Soomaaliyeed oo qurbaha dhibaatada ku haysato markay wax yar oo dhaqaale ay helaan ay wadankooda hooyo ay ula soo cararaan oo ay ku soo maalgashadaan wadankooda in ay niman joogaan hantidaas fiirsanaya iyagu islaam iska dhigahaya masaajidka kaaga horeeya laakiin xalaasha iyo xaaraantu ay isaga mid tahay aan kala jeclayn. marka halkan waxaan u imid arrin aniga ii khaasa oo igu dhacday sida aan filayo dad badan oo Soomaaliyeedna inay ku dhacday oo hanti anigu aan ku lahaa magaalada Muqdisho oo niman ay mataqaana gacanta ku dhigeen inaan ummadda Soomaaliyeed aan la wadaago iyo cid kasta oo cadaalad iyo wanaag jecel inaan la wadaago ummadda Soomaaliyeed oo aan u sheego in xaq darro lagu haysto gurigaygii meel kastana aan u maray aan Muqdisho tagay anoo doonayo wanaag ku doonaya anoo sharci ku doonaya aan jiddo tagay anoo wanaag ku doonaya intaasna waxba ka suuroobi waayeen oo layga aqbali waaye oo aan noqdayba ninka qaladka galay in aanan uga ahay la ii arkay. guri baan waxaan ka iibsaday magaalada Xamar degmada Wardhiigley xaafadda Barwaaqo 1900 December 1982 anigoo qurbaha ka imid anigoo hantida yaraada aan banaan ka soo shaqaystay doonaya inaan meel xalaal oo dalkaygii ah inaan dhigto oo ay hanti ii noqotaan oo doonayay waxaan guriga ka iibsaday nin la yiraahdo Qaasim Nuur Amiin markii iigu war dambeysay wuxuu joogay oo la iigu sheegay inuu joogay magaalada Afgooye ninka ganacsadaha baan ka iibsaday markaan iibsaday waxaa ku jiray nin la yiraahdo Umar Wiiro oo ganacsada weyn ah oo Xamar laga yaqaano oo hadda Xamar degan oo kira ugu jiray gurigayga ayuu ku guursaday ninkaasi 3 caruur ugu dhalatay gabar Soomaaliyeed oo reer caan oo reer East Africa ahaan jiro ilmo dhimbil la yiraahdo gabar ina dhimbil la yiraahdo ayuu ku aroosay gurigayga dad wanaagsan oo sharaf leh bay ahaayeen oo gurigayga ku jiray waa ninkii igu maamaay markaan Xamar ugu tagay gurigaaga haddii aan layga saari lahayn weligay hanti ma yeesheen buu yiri waayo wuxuu yiri waan iska deganaan lahaa buu yiri weligay cid ugu imaan buu yiri intaas 9 sanadood ka badan buu deganaa inta qof ugu yimid ma oran war guriga kan ilaa aniguna wadanka ma joogin war gurigaan yaale iyo gurigaan waxba ka jabay iyo cid tiri ma jirto waayo anna ma joogin dadka kalena ma taqaanaa oo aan guriga uga soo tagay na dad dib badan ma aysan ahayn kirada buu meel u geyn jiray guriga saaran isaga iska deganaa maalintii dambe gabar u timado waxay ku tiri guriga nooga bax dadkii aan wakiilka uga dhigay kamid ah gabar ay islaantii aan wakiilka uga dhigay guriga eedada ay dhashay gabadhii baa guriga ka saadhay maalintii Umar oo guriga ka guuray gurigii wuxuu noqday guri ay soo degaan dad ehelkayga ah ayadoo gabadhu haysato eedadii ay haysato warqad wakaalad ah oo aan uga soo qoray 1989 qunsulaatada guud oo Soomaalidu ay ku lahayd magaalada Rome ee dalka Talyaaniga ayaan uga soo qoray
warqad wakaalad buuxda ah oo aan ku iri ma gadi kartid laakiin waana kiraysan kartaa waana deganaan kartaa ayadaa mas-uulka ahayd gabadhaas siday meesha u deganayd waxaa ka dhacay magaalada xamar dhibaatadii ummaddan oo dhan saamaysay oo dagaalkii sokeeyey dadkii meesha deganaa oo eedaday iyo caruurteedii iyo dadkii kale oo ehelkeeda ahaa oo guriga la deganaa markii dagaalkii dhacay bay isaga soo carareen gurigii oo cidlaha laga soo tegay oon cidina joogin dad waa jireen guriga ogaa oo ehelka ah oo guriga marmar tegi jiray laakiin cid deganeed waktigaas ma aysan jirin guriga xuseen cabdigeedi nin la yidhaahdo oo u dhashay qabiilka murursade oo sabti ka sii ah oo ayaansamo ka sii ah oo hadda sacuudiga jooga markii iigu dambaysay joogay ayaa gurigii la soo galay AK-47 ilaa iyo haddana AK-47kii baa hor yaalla oo layla sugahaya aniga haddaan tago in laygu dhufto aniga oo laygu dilo waanaan dareemay marka aan siday u dhaqmahayaan arkay inay khaarajiraan inay rabaan inay waxba u ahayn ay wax aada ugu sahlan ay tahay marka ummadda Soomaaliya waxaan u sheegayaa anigu xamar waa tagayaa waa magaaladaydii waay magaaladan ku soo koray magaaladan ka soo dhoofay qurbaha ka soo aaday magaalada wax ku soo bartay weligeena magaaladeeda ay ahaanaysaa haddii aan ku noqdo oo wax dhibaato ay igu gaaraan xuseen cabdigeedi inuu mas-uul ka yahay iyo in adeerkiis cabdixakiin sheekh cumar labadaa nin oo labada nin oo guriga nin isku babedelayo nima mar haystay ay yihiin ilaa haddana haysta ayaa mas-uulka ah taas baan ummadda Soomaalida u sheegayaa haddii waxay soo gaaraan markaan xamar tago inay nimankaasi ay mas-uul ka yihiin qoriga ay la soo galeen oo weli gurigayga yaallo oo ay la sugayaan aniga inay si sahlan ii khaarijiyaan kabacdina ay gurigoodaas qaataan laakiin gurigu saa ku raaci maayo 40 wiil baa ila dhalatay aniga walaalaheeya anigu haddaan dhinto kuwa kaloo guriga doonaya imaan doona carruurtaydii baa joogta iyagoo doonaya imaan doona hadda waxaa ciidamo ugu imaan weyda anigii baa nool oo laleeyahay aabbahay guriga ma u dacwoodo ama walaalkay gurigeedu sagaale gurigiisa ma u dacwoodo laakiin aniga hadday dilaan waxaan u sheegayaa inaanay lahaan doonin gurigaas oo aysan guri ay mataqaanaa saa u milkiyaan ahayn xuseen markuu gurigaas soo galay waraaqo koobi aan u malaynahayo wuu ka helay iyo tii maxkamadda oo maxkamadda gobolka Banaadir taallay oo annagoo aan dhignay markaan guriga iibsanayay koobigii yaallay inuu doontay iyo inuu guriga ugu yeedo ma garanayo laakiin koobi buu helay guriga uu leeyahay oo warqadii guriga anigu aan ku iibsado magacaygu ku qoran yahay buu helay wuxuu la tegay meelihii waraaqaha laga samaysan jiray isagoo dhahaya anigu Cabdi Yuusuf baan ahay waraaqii originalkaana waa iga dhumeen waxaan rabaa in mataqaana la ii sameeyo waraaqo kale oo nifaaq iyo wax lagu tilmaamo iyo koobiyaal kale waraaqahaasuu samaystay isagoo aniga isa kay dhigaya warqadda nifaaqa uu samaystay sharci bay leedahay marka la samaysanayo waa la sameeyaa laakiin marka la samaynayo waxay leedahay sharci iyo dariiq loo maray leedahay anigu markaan inta gurigaaga tago nin kastoo Soomaaliya uu tago mulkiyadiisa uu yiraahdo waraaqdii waa iga dhuntay ee hal ay sameeyo warqad nifaaq la yiraahdo waxa laga rabaa horta marka u horeysa inuu soo cadeeyo waxa kan inuu isagu leeyahay marka labaad waxa laga rabaa inuu markhaanti keeno marka saddexaad waxa laga rabaa damaanad haddii gurigaas waxa uu ninkaasi ka sheegaya ay yihiin been inuu damiin cid loo raacdo uu keeno intaa midna ma haysto anigu warqad ma soo qorin fiideo kuma soo hadlin wakiil uma soo samaysan iskama kay dhigi karo sababtu waxa weeye anigu maba jooginba magaalada Tawaan deganaa maalintaas aan joogay oon shaqaynay warna uma haynin in la khiyaamaynayo dhabarkayga laga laabanayo gurigayga la iibsaday war uma haynin wuu soo galay caruurtiisii buu ku korsaday intaasoo sanadaad buu deganaa waxaan maqli jiray da qofka bini aadanka madaxadayga qofka bini aadanka ah ilaahay baa xataa ayaa ka hadlay waxaaraana oo iyagu aan lahayn
inta ay beenta ku sheegayaan oo ay leeyihiin hebel baa naga gaday iyo hebel baa naga gaday waxay caddaynaysaa madax adayga ilaahay uu qur-aankiisa ku sheegay low anzalnaa hada alqur'aani calaa jabalin la ra'aytahu khaashican mutasadiqan min khashyati illaahi wa tilka alamthaalu baa ilaahay aayad qur'aanaha leh buuraha haddaan ku dejin lahaa qur'aanka aan bini aadanka ku dejiyey khushuuc iyo cabsi ay u qabaan ay qur'aanka iyo ilaahay ay u qabaan waxay u dhaqaaqi lahaayeen sida biyahoo kale ayay noqon lahaayeen marka taasi cibro qaadasho ayay bini aadanka u tahay weeye aayadda naskeedu sidaasi ka hadlaysaa marka inaad been sheegto iyo inaad madax adayg aan meel maraynin oo la og yahay oo wax cad ay ku hor yaallaan oo meel walbaba laleeyahay wax cad baa lahayaa waxaad sheegaysaa ma jiraan aad ku sii dhig adeegto ood ku sii qalafsanaato waa waxa hadda aniga ay hor yaallo aniga ay haysta wey dhowr sano markuu deganaa sanado badan uu deganaa ilmihiisa ku korsaday wuxuu aaday sacuudi arabiya in adeerkiis buu uga tegey ninka labaad aan magaciisa sheegay oo cabdixakiin sheekh cumar baa la yidhaahdaa waaba nin sheekh ah ka yimid reer sheekha oo culummo ka yimid oo la rabayba inay xaaraanta iska ilaaliyaan wax la yaab la weyn nin sheekh isku sheegaya inuu xaaraan carruurtiisa kusoo korsado iyo guri uusan lahayn ma fahanti kitaabka ugu yar salaada ka hadlaya safiir salaadka la yidhaha ugu yaro laga bilaabo salaada qof kasta oo salaad tukadaa waa inuu bartaa waa waajib inuu kaa yaqaano waayo wax way isu u tukan lahaa ma yaqaano shuruudaha waxaa ka mid a inaad meesha aad ku tukanaysa ay xalaal tahay ay daahir tahay dharka aad ku qabtaana inuu daahir yahay badankaaguna inuu daahir yahay haddaad ku tukanayso meel xaaraana oo adigu aadan lahayn dharkaaga daahir ma aha meeshaad ku tukanaysa hadday xaaraan tahay waa salaadda aad tukanaysaa waa forforarsa wey cabdixakiin sheekh cumar waa nin hadduuna isagu wax garanayn aabihii laga yaaba inuu sheekh ahaa oo magacaas taytalkaas diinta wato marka inuu carruurtiisa ku koriyo meel xaaraana uusan lahayn wuxuu dembi ka gelahayaa diinta islaamka iyo aqoonta islaamka ayuu dembi ka gelayaa ninkaasuu uga soo tegey ninkaasaa isaguna intoo kala deganaa wakti badan deganaa markaas kabacdina wuxuu ka iibiyey nin kale oo murursado ah oo nin wanaagsan ahaa oo markaa dabeecaddiisa iyo dhaqankiisa aanu barannay aad garanayso inuu ahaa nin nadiif ah oo uusan sameeyeen waxa ay kuwaani sameeyeen baa lagu qiyaamayay isaga laftiisa oo laga iibiyey afka loo geliyey oo dollar baa laga siiyey 2004kii dad ehelkiisaabaa iska soo degay gurigii siday dadkii u deganaayeen 2010kii ayaan waraaqihii aan haystay originalka gurigayga oo ay ku jiraan kuwad aftalyaani xataa ku qoran waagii la sameeyey sabroloogadii ugu horreyso gurigayga la sameeyey aftalyaani bay ku qoran intaan af soomaaliga la qorin bay 1970kii 1970kii ayaa ku jiray waraaqihii ay ku iibsatay qofkii markaas la siiyey ay ku iibisay ninkii dhisay waraaquhu ku iibsaday qaasim nuur amiin oo ninkii dhisay ka iibsaday waraaqihii uu ku iibsaday tii anigu aan ku iibsaday intaasoo isdul saaran baan hayaa oo kulligood originaal ah waxaan hayaa 1982 82 bishii December ilaa iyo markii dowladdii Soomaalida burburtay 89kii markii ugu dambeysay canshuur la qaaday inay ahayd baan u malaynaya oo warqadda ugu dambayso aan haysto anigu oo canshuurta sheegaysa intaasoo isdul saaran baan hayaa sanad kasta canshuurtii aan bixiyey bal iyagu bal mid ay canshuur ku bixiyaan inay keenaan hadda guriga waxa u baahan dowladda Soomaalida inay canshuur ka qaadatay u baahanta markay guriga tagaan oo canshuur weydiistaan koobi baa la tusaayo la yidhaahdaa cabdi yuusuf baana cabdi yuusufna ma joogo originalkiisina halkaanu ku haystaa waa koobi waxa la tusaaya war koobiga kan iska daayo ninkii iska lahaa iyo originalkii maan rabnaa guriga kan waayo magaca ku qoran waa kayga magac iyagu ay leeyihin kuma qorna cabdi yuusuf adinka ledinma yidhahda cabdixakiim baa lagu yidhahdaaye cabdi yuusuf oo guriga waraaqiisa ku qoran keen isagaan canshuurta ka rabnaayo qof yiri ma jiro oo iska degan ya in adeerkiisaa deganaa isagaa degan carruur ku soo kortay jenaraal xasan baa laga iibiyey haddana kiraa loogu jiraa gurigeyga oo dad kalaa kiro ugu jira lacagtii uu ka iibiyey jenaraal xasan ka qaatay ceel baa lagu qoday dayniila ku yaalla oo hadda xoola ka cabbaan iyo dad ka cabbaan oo la gadaa dad shacabka laga gadaa
وحاران كله وعروضي سو كسي كرسان هايو عبد الحكيم مركا ان markii ay arintaasi ay dhacday injineer xasan waxaanu tusnay oo aanu u geynay waraaqii sidaas inta ka diray oo Dubai la mariyay oo gacanta lagu qaado xamar la geeyay iyaan injineer xasan tusnaa waxaan ku niray gurigan laga gaday waa lagu khiyaamay annaga ale ilmaadeeradaana way ku khiyaameeyeen ma fahanti bal annaga hadna khiyaameen adiga maxay ka khiyaameynaya adigu ilmaadeerkood baa tahay inay ku khiyaameen ma baahaynba ma garat laakiin way khiyaameeyeen afkay u galiyeen 30 kun bay ka qaateen markaas anagu aan waraaqii tusnay ayuu garawsaday inay tahay waxaan sheegaynaa inay run tahay dariskiiba u tagay dariskii dhan buu weydiiyey dariskii dhan waa yaqaanaan aniga oo intii yarada aan xamar joogay dadka dariska ilaaha oo dhan waa salaami jiray waa u tagi jiray waa la hadli jiray gurigii dariskeena nin cusub oo Sacuudi ka yimid ma taqaana banaanka ka yimid ayaa iibsaday oo isagii joogo oo maalin walba la sheekaysanaya dadkii saas ay ugu barteen marka darisku waa yaqaaneen inaan soo baxano waqti badan aan guriga joogo Soomaaliya joogina way ogaayeen markaas oo qof arkaan cusub guriga ku arkay xagee ka timaadeen bay yiraahdaan markaas ay yiraahdaan guriga anaga gadanay oo intayaad ka gadeen ninkii guriga iska lahaa guriga beec ma ahayn ninkaas naxradaan ma joogayaad ka iibiseen su'aal ma hayaan markaas afka xirtaan ama dadkii u hanjabaan yiraahdaan gurigan ka bax arintiisa ka hadlanina hadii kala dhibaato idin imaanaysa ilaa qorigii baa la soo galay baa yaallo aniga leela sugayay baa wali guriga dhex yaalle qof walba markaas iska aamusa oo naftiisa ma taqaana uu safe garaysta oo ilaashada marka injineer xasan markii dariskii u cadeeyeen inuu yahay guri xalaal aan ahayn oo inaadeerkooda ay ku khiyaameeyeen ayuu wuxuu sameeyay iyagiiba u tagay wuxuu ku yiri guriga kan waan soo ogaaday waan soo baaray ma aha guri xalaal ah aniguna ma rabo lacagtayda la celiyo lacagtiisa injineer xasan saasuu ku qaatay sababtu waxa weeye waa inaadeerkooda nin la xoogi kara ma ahayn ama ma taqaana laba nin oo ama reer ama laba reer oo walaala isuma hanjabi karaan odayaashii dhaqanka iyo dadkii baa u imaanaya ama xoog baa imaanaya marka ala kulli xaal injineer xasan lacagtiisa uu qaatay waana soo wacay aad iyo aad baan uga mahad celinayaa wicitaanka uu soo wacay oo leeyahay gurigiinii anigu waan qaatay lacagtaydii wax shaqo aan ku leeyahay ma jirto kula xisaabtama nimanka haysta sidaas ayaa injineer xasan uga baxay aad iyo aad baan ugu mahadsanyahay injineer xasan wanaaga uu sameeyay iyo ma taqaana informationka uu u soo kordhiyay dadkii doonayay inay guriga ka afduubka isaga haystaan haddana ku haysta intaas ka bacdi xamar baan tagnay maxkamad baan furnay maxkamadii markii la furay labada nin oo guriga lugta ku leh ninna waa degan yahay guriga ninna waa ninkii markii uu horeysay gacantiisa uu soo galay oo Sacuudigu tagay oo kanu uga tagooda kii Sacuudiga joogay ayaa maxkamadii nagu xirto waxay tahay waa in ninka la helaa waayo isaga markii uu horeysay guriga gacantiisa soo galay waayo ninkii sida lagu helaya nimankii uu soo wakiisho maxkamadda fadhiyay ayaa waxa la yiri saad u dhaqmaysaan ninkii baa la rabaa ama ninkii ka doodi lahaa keena waa keenaynaa ballan nasiya yiraahdeen ballan baa loo dhigay bil iyo 40 cisho 2 bilood 3 jeer oo isku xigta ayaa 3 ballan loo dhigay mar walba markii ballan ku dhamaaday yimaadana waxay yiraahdaan isagana waxay ku yiraahdaan ha imaan meesha guriga kuma hayno wana la ka qaaday maxkamaddu naga qaadaysaa annagana waxay nagu yiraahdaan maalin kastaba ninka uu imaanayaa waqtigan la siiyo maxkamadda ku yiraahdaan siday saas u socotay laablaabkaas u socday maalintii ugu dambeysay oo maxkamaddu ballankii ay lahayd baan Ottawa ka duulay Muqdisho aan tagay maxkamaddii baan tagay oo socota ballanka kana dhamaanayni muxuu yahay baan idhi ninka maxkamadda fadhiyay oo wadaadka ah ilaa khayr siiye frustration buu noqday buu xanaaqsanaa khiyaamada iyo laablaabka aan dhamaanayn oo ay sameynayaan oo maalin walba ay la hor imaanayaan ilaa isagoo ah ninka kees gacanta ku hayo maalin walba waxaan loo keenayay wuu xanaaqsanaa maxkamadda horteedii buu ku yiri guriga kan Abdi Yusuf baa iskale ninkaan idin hor fadhiya oo Kanada ka yimid baa guriga iskale buu ku yiri idinkuna waa ogtihiin inuu ninkaan guriga leeyahay annaga maxkamadda ayna waa ogna ma fahanti laakiin waxaan ka warsugaynaa wali inay arinta tan ballanka ah ay soo dhamaato oo meel intihaa ah oo ay mataqaana dhamaada ay gaarto ayaanu sugaynaa markaas aanu go'aan gaari doonaa ballankii ugu dambeeyay isagoon wali dhamaanin ayaa dawladda Soomaaliya la wareegtay ereyadii
dhulkii uu ku yaalay gurigu bay la wareegtay keeskii marka sidaasuu ku dhammaaday maslaxad baan markaas isku dayey odayaal baan isugu yeeray war guriga kan anigaas kale nimanka kalena waxay ku haystaan been iyo waxaan macquul ahayn iyo cabdi baa naga gaday anoo soo jeeda bay been iga sheegayaan maalintii meeshaan ka shaqaynayey ninkii aan u shaqaynayay warqad buu ii soo qoro wuxuu ku yidhi waad maalinta kowda isnoocaas soo maahan waa shaqaynaya inaad shaqaynaysa annaga caddaynayna hay-adda taxationka oo Canada ayaanu tago waxaan idhi maalintaas inaan shaqaynaya caddayn ii soo qora warqad bay ka soo qoreen ilaa wax kasta waa rekoord garaysan yahay dadku canshuur buu bixiyaa wax walba way qoran yihiin inaan maalintaas shaqaynahayay oo aan meeshaa joogay ayay soo caddeeyeen marka haddaan shaqaynayo anugu aan tawo joogay sidee baan u tegi karaa xamar oo aan uga iibiyo guriga weeye marka waa beentii iyo wixii aan ka sheekeynaya maanta oo dhan weeye arrintaas halkeedu halkaas weeye taasina halkaas oo maxkamaddii ay ku dhammaatay 2013kii 2013kii waxaan aaday cimro Canadaan cimro ka aaday ujeedadeeda igu weyn inaan soo cimraystay bay ahayd markii aan tagay cimradii ii dhammaatay xuseen cabdi geedi baan raadiyey oo jidda jooga oo ninkii maxkamaddu sugaysay ah waan raadiyey cidna waa garan weydi waan raadinay gurigiisii baa la horgeeyey intaan dad kale soo wareejiyey gurigiisii baa habeen la horgeeyey oo la gurigaanu degan yahay intaan soo helay dar albaabkii naga furi waayey albaabkii markuu naga furi waayey waxaan tegey qunsulaatada Soomaaliya warqad baan ii qora dacwadaasaa jirta ninkaasaan doonayaa horta in lay tuso inaan arkaan rabaa ujeedadeedu waxa weeye aniga guri layga siin mahaya jidda gurigiina kuma yaallo sharci jidda aan uga furayaana ma jirto laakiin waxaan rabaa hortiina inaan ninka kan aan ku arko si uu egaya xataa ninka kan dhahaya cabdi baa iga gaday oo aan weligay arag warqad bay ii soo qoreen waxay yidhahdeen warqadda markaa u dhiibaysa markhaanti u samee shaqadiisii baan tegey meeshii shaqadiisii baan soo helnay shaqadiisii baan tagnay 5 nin oo Soomaali ah oo qolo kasta oo Soomaalida oo mataqaana waan ka haystay oo cuqaal iyo dad wax garad ah oo isaga qaarkood la shaqeyn intood badan isaga la shaqeynayeen baan ka xiyey isagaan u geyn xuseen warqadaan hoo baan ku yiri warqadii baan u dhiibay saas uu fiiriyo tagayaa bir qunsulaatada may taqaan baan ku yiri mayu yiri waligaa miyaadi aragtay maya Cabdi Yuusuf baan ay baan ku yiri ma garanaysaa ninkaas magaciisa ku qaraaban jirtay oo aad oran jirtay guriga iga gaday oo hadda guriga aad ku haysata magaciisa baan ay baan ku yiri shoog baa ku dhacay waa hadli waay hadal baa ka soo bixi waay baaburkiisii buu galay naga tagi maalintii ka dambeysay suuqa wuxuu ku lahaa Cabdi baa iga gaday guriga maalintii ka foolka loogu yimidna sidaasuu u jawaabi waay marka arrintaasna halkaas ayaa igaga soo xirantay marka ummadda Soomaaliyeed iyo inta ilaahay ka baqayso cabsida ilaahay taqaana oo xaraanta iyo xalaash u kala soocan yihiin waxaan u sheegayaa nimankaas inay gurigayga haystaan waxa ay ku haystaan inaan wax sharci ahayn waxa ay ku haystaan been la isdul saaray iyo deception iyo lies inay been iyo khiyaamo inay tahay af Soomaaliya dan ku sheego inay gurigayga way wax ku haystaan wax la dhoobay ay yihiin marka waxaan codsanayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta caalamka joogta iyo caalamkaba in sharciga aan ku doodahayo xaq aan ku doodahayo in gacan laga siiyo cidda iga siin karta oo awood u leh ama dawladda Soomaalida ha noqoto ama dadka wax garadka ha noqdaan ama mursadaha laftooda dad badan oo saaxiibadaya oo aan meel kasta caalamka iskala shaqayn jirnay oo aniga hadda ila jooga oo dad macquul ah oo dad sharaf leh ah ayaa jooga oo tawa jooga Toronto jooga ila jooga magaalada waddanka aan deganahay jooga oo aan qaarkood u sheegay xaq darrada iyo dhibaatada la igu samaynayo oo ka xun
ma fahanti marka intaasoo dhan waxaan ka codsanayaa ciddii arrintaas wax igala qaban karta in ay mataqaanaa ay igala qabtaan haddaysan igala qaban karin inay ogaadaan inay xaqdarro tahay inay been tahay in khiyaamo lagu haysta gurigaygii waxaan kaloo sii sheegayaa qunsulaatada soomaaliya markaan isugu tagnay aniga isagu oo aan wada hadalnay cabbaar guriga arrintiisa ka wada hadalnay wuu xanaaqay sababta waxaa weeye qofku mar haddaanu waxa uu ku hadlaya ama waxa ay haystaa aysan mawqif fiican aysan ahayn ama been ay yihiin ama ay khiyaamo ku jirto uusan qofku wax isku hadlayn karo isku huba uusan haysanin wuu xanaaqa weligiis wuu xanaaqay markaasuu shaarka laabtay si nin dagaalamaya ayuu shaarka ii laabtay anigu da ninka aad u jeedaan intaa dheer la-eg baana waxna waan aqaanaa laakiin oo nin uu dili karo carruura miihi maxaa meesha ka soo baxay sawirka meesha ka soo baxay wuxuu caddaynayaa haddaan maalintaa muqdisho joogi lahaa sida easyga ah oo igu dhufan lahaa qorigii uu gurigayga la soo galo akayga weli gurigayga hor yaalla inuu easy igu dhufan lahaa baa meesha iga soo baxday ama wiil yar uu siin lahaa $25 oo lahaa ninkaas oo khaariji marka ummadda Soomaaliyeed mar labaad waxaan u sheegayaa waan tagayaa xamar aniga waa magaaladeedii weey cid iga celinaysaana ma jirto maalintaan waqti helo waa tagayaa sharci iyo maxkamad iyo wanaag ayaan xaqayga ku raadsanayaa ummadda Soomaaliyeedna waxaan doonayaa inay gacan siiso wixii siin kara marka laakiin haddii wax gaaraan oo xabad la igu dhufto xamar gudihiisa ay wax igu gaaraan waxaa ka masuul ah Xuseen Cabdi Geedi oo nin murursada u dhashay ah anigu murursadoo dhan waxba ka sheegi maayo ma eedaynayo waa arrin shakhsi wey labadaa nin oo qaa'imiinta ah ayaa aniga dhibaatada ay igu sameeyaan u haystaa cid kaloo aan reerkooda iyo ehelkooda midna aan u haystaa ma ay jirto waa Xuseen Cabdi Geedi oo murursada ah oo sabti ka ah oo ayaansamo ka ah iyo Cabdixakiin Sheekh Cumar oo isaguna sidoo kale ay isku reer yihiin oo isku qabiil yihiin saddexdaas qabiil baa magac ay wada wataan iyo adoorkeed cilmi dheere anoo halkan oo tawajo aan kala hadlay dhowr jeer baan la hadlay markii hore dadkii garta ku jiray buu ahaa oo garta aanu u fariisinay oo 3 jeer in ka badan garta wax ka galay ayuu ahaa isaga laftiisa ayaa ka darnaa waxa uu ku hadlayay waxa iyagu ay ku hadlayaan marka haddii dhibaato ay soo gaadho Soomaaliya la socda 3 nin baa masuulka ah maalintan xamar tago gurigeygana ma ka harayo haddaan anigu dhintana dad baa jooga fara badan oo aniga la dhashay ama anigu aan dhalay oo aan ka hari doonin gurigaas ayaa jira oo wax cidlo lagu qaadanaya ma aha laakiin waqti baanan haynin hadda aan xamar ku tago dacwad ku furaya maxkamad laakiin maalintan time helo oo aan u malaynaya inay maalin fog ahayn inaan imaan doono una dacwoon doono waxaan ka codsanayaa in sharciga aniga keligay maahane ummadda Soomaaliyeed oo dhan bay dhibaatada tan dadka badan oo kamid ay haysataaye in sharciga la soo celiyo in sharciga loo hiiliyo waa waxa kaliya aan wadan ku heli karno waa waxa kaliya aan wanaag ku heli karno inta khiyaamo sidaasi ay socoto oo nin xaqiisii iyo gurigiisii saa loo haysto wanaag ma suu ku dhaca waa adagta laakiin anigu ma jeclo waxaan jeclahay in wadankaygu hagaagsanaado inuu wadankaygu fiicnaado xataa haddaan gurigayga helin inaan tago gurigayga wadankayga oo nabad ah oo aan ku nasto oo aan fasax u tago waa jeclaan lahaa qodobka 26aad ee dastuurka Soomaalida oo qabyada ah hadda la wado ayaa sheegaya in qof kastaaba uu xaq u leeyahay inuu hanti yeesho hantidiisa inuu qof kastaaba yeesho waa hantidaydii waan u dhintay qurbaan kala imid banaankan kala imid wax xataa wadanka aan ka shaqeeyay ma aha anoo carruur oo dhan yara baan ka baxay Soomaaliya waan soo shaqaystay waa ku soo celiyay haddaan meel kale maanta ka dhisan lahaa xoolahaas ma taqaana rakuma raaxaysteen marka dhib iyagaa qaba hadday carruurtoodana ku korinayaan iyaguna degan yihiin maanta yawmal qiyaamana ilaa waa la dhimanaya adduunkan waa laga tegayaaye carruurtooda ay ku markhaanti furayaan tay dhaleen ay ku markhaanti furayaan odhanayaan aabba maxaad noo siisay xaaraanta marka dhib iyagaa qaba waa mahadsan